Dunidan aynu ku noolnahay waxaa laga ciyaaraa kumanaan ciyaar oo kala duwan. Qaar ka mid ah ciyaaradaas waa ciyaaro caan ah oo ay dad badan taageersan yihiin, malaayiin doolarna laga helo. Halka ciyaarado kale markaad aragtid ay amakaag kugu reebayaan. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa ciyaaro la yaab leh oo aadan ogeyn inay jiraan ee daawasho wacan. Baaskiilka banooniga ciyaartan oo lagu magacaabo cycle ball sidoo kalena la dhaho red ball ayaa ah ciyaar kaliya lagu ciyaaro baaskiilka ay ku ciyaarayaan mar aan wax break ah. Sidoo kale steering baaskiilka ayaa loo sameeyay hab ay u fududahay in lagu tuuro banooniga. Sharciyada ciyaartan ayaa waxaa ka mid ah haddii ciyaaryahanka uu lugta dhigo dhulka ayaa waxaa la dhigayaa penalty ama rigooro. Ciyaartan ayaa waxay caan ka tahay wadamo badan oo galbeedka ah iyo wadamo qaar oo Aasiya, waxaana ciyaartan ikhtiraacay nin lagu magacaabo Nicholas Edward Kaufman oo u dhashay dalka Switzerland sanadkii 1893 ee qarnigii 19aad. ciyaarta malayga tuna ciyaartan oo lagu magacaabo tuna toss ayaa waxaa laga ciyaaraa koonfurta Australia, waxaana la bilaabay ciyaartan sanadkii 1979. ciyaartu waa in la tuuro malayga noociisa uu yahay tuna. malayga ayaa ah mid aan loo dilin munaasabadda ciyaartan awgeed, balse malaygu waa mid si dabiici ah u dhintay, waxaana qoorta ugu xiran xarig uu qofka qabanayo kadibna uu wareejinayo isagoo ku dhex jira goobaabin yar. kadibna qofka uu tuurayaa malayga, qofkii meel fog gaarsiiyay ayaana ku guuleysanaya. markii finalka la gaaro ciyaarta ayaa waxaa la isticmaalayaa malay la qaboojiyo oo culeyskiisu u dhexeeyo 9 ilaa 10 kilogram. ku guuleystaha ciyaartan ayaa waxa uu qaadanayaa $1. rikoorka ugu badan ee ciyaartan waxaa haystaa nin lagu magacaabo Sean Charlin, isagoo malayga uu tuuray gaarsiiyey fogaan dhan 37.23 mitir sanadkii 1998. tartanka gorayada haddii aad maqli jirtay tartanka fardaha ama gawaarida, ogow in uu jiro tartan lagu magacaabo ostrich race waa ciyaar isboorti ah oo dadku iskaga tartamaan dhabarka gorayada. waxaa sidoo kale loo fuuli karaa si la mid ah sida fardaha oo kale, balse tartankan ayaa la sheegay inuu ka adeegayo maareynta fardaha. gorayadu waa shimbiro waaweyn oo aan leen wax duulimaad ah, balse alle ayaa ku manistay xawaaro sare oo saacadii waxay jari karaan 70 kilomitir oo u dhiganta 43 mayl. tartanka gorayada ayaa caan ka ah koonfur Afrika iyo qaybo ka mid ah dalka Mareykanka, waxaana ciyaartan la bilaabay sanadkii 1890. markay ahayd ayaa la bilaabay in qaybo ka mid ah dalka Mareykanka laga furo goobo lagu xanaaneeyo gorayada si dalxiisayaal loogu soo jiito. 2 sano kadib ayuu bilaabay tartankan si loo kordhiyo dalxiisayaasha, waxaana loogu magac daray ostrich race. ilaa maantana waa la ciyaaraa. ciyaarta xayawaanka xaaxeeyaha markay imaado orodka ama socodka waa xayawaanka ugu orodka yar dunida, sidaas oo ay tahay waxa uu ka mid yahay xayawaanada ka qayb qaata tartamada orodka. xayawaankan ayaa loo sameeyaa goobaabin wareeg ah, waxaana tartamaa walba loo sameeyaa sumad uu kaga duwan yahay tartamayaasha kale. macnaheedu waa in uu leeyahay nambar sida ciyaartooyda oo kale. xayawaanka dhaafa xariiqda ugu dambeysa ayaa noqonaya guuleystaha, waxaana ciyaartan lagu magacaabaa snail race. rikoorka ugu badan ee ciyaartan waxaa haysta xayawaan lagu magacaabi jiray Archie, wuxuuna fogaan dhan 33 sentimitir ku dhameeyey muddo 2 daqiiqo iyo 20 sekond sanadkii 1990. ciyaartan ayaa caan ka ah wadamo badan oo ka mid ah qaaradda gabowday ee Yurub iyo wadamo kale oo dhaca dhanka Aasiya. ciyaarta legdanta suulasha waa isboort ay ku jiraan 2 qof oo iska soo horjeeda, kuwaas oo lugaha isku celiya oo isku dayaya in midba midka kale uu lugtiisa hoos u dhigo, mana lahan waqti xadidan oo la mid ah legdanta gacanta. ciyaartan ayaa lagu magacaabaa toe wrestling, waxaana ciyaartan la alifay sanadkii 1974 iyadoo ay alifeen 4 nin oo khamri cabayaal ah, kuwaas oo ka murugeysanaa in boqortooyada Ingiriiska ay ku dhibtooday
soo saarista ciyaar cusub oo adduunka caan ka noqota. dabcan haddii la hindiso isboorti cusub oo aysan cid ogeen, dalku waa uu ku faani jiray, waana sababta keentay in 4 nin ay ikhtiraacaan ciyaartan. legdanta suulasha ayaa waxaa laga ciyaaraa wadamo badan oo ay ka mid yihiin China iyo sidoo kale qaybo ka mid ah qaaradda Yurub sida boqortooyada Ingiriiska, waana halka ay ciyaartan ka bilaabantay. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar, sidoo kale ha ilaawin inaad dhahdo subscribe. mahadsanid.